بسم الله الرحمن الرحيم عويسونا سندمان باخيرته ودان نقلا socotaalkana waa xarunta telefishinka Kebel ku leeyahay magaalada Hargeysa saacaduna waxay ku taagantay waqtigan idin soo gudbin jirnay warkayga caweysnimo waxaana u diyaar aniga aan jeclaanahay warkii oo kooban madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa kulan la yeeshay xogayaha guud ee qaramada midoobay iska hor imaad kooban ayaa gobolka Sool waxa uu ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland booliska wadanka Ruushka ayaa u dhacay xafiiska hogaamiyaha mucaaradka ee wadanka Ruushka dawladda kuwaasi waa qodobada wararkeena ugu door karoon haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan